waxaan leeyahay maadaama ay go'aan ka qaateen beelaha dhulbahante iyo beelaha warsangelina la qaateen ergadii waxaanu fasaxaynaa aan leenahay raali naga ahaada ergadii absame waxaanu fasaxaynaa madaxweyne deni waxaanu fasaxaynaa madaxweyne ciro iyo wafdigiisa iyo dawladdiisa dalkayga dadkayga awoodaan ku difaacano waan leenahay ceerigaabana maanta calan aan calankaas Soomaaliland ahayna laga taagi maayo cid kale oo wax kale oo lagaga wada hadlayaana ma jirto wadada ay ka rogeen raggii nabadda lagu tuhmayay teedii baanu ka rogaynaa waxaan leenahay meel kasta joogtaan waxaad u diyaar garowdaan colaada iyo duulaanka ilaa dawladda federaalku wado sida dalkiina iyo dadkiina iyo maatadiina iyo xoolihiina u difaacan lahaydeen waxaad arkaysaan inaanay beelaha dhulbahante ama SSC la baxeen ama khaatamaha la baxeen inaanay nabad diyaar u ahayn iyadoo erga noo timo beelihi absama noo yimaadeen oo dadku wada nool yahay waxa la bilaabay ummad xoolaheediina in la boobo lana laayo anagoo tiknikadeedii iyo tii dawladdu midna aanay u dhaqaaqina toodii ay madaxa ka toogatay naxariis darrada dhacday garaadadii markay yiraahdeen hal la sii daayo war nin dhaawac ahaa oo 4 meelood ka jabnaa oo la qaatay oo dadkiisi hadda weysto ninkani nin dagaal ku jiray maaha war reer miyigii wada yaalay war garaadadii yiraahdeen yeenan dadkeena u ibaaxayn in dadka reer miyiga ah inta gawaari la jiirsiyo la maxbuus gareysto xukuumaddii halkaa ka jirtay ee SSC ay magacowdeen ay dhisteen waxay go'aan ku gaadheen inaan ninka lana kabin lana daweyn dhakhtarkana uu ku dhinto maadaama ay halkaa istaagantahay inaanu dadkayga reer miyiga difaacno inaanu dalkayga difaacno inaanu dantayada difaacno diyaar baanu nahay waxaanu leenahay cid walbana leenahay dhibaatada halkaa ka socota ilaahayna wuu ogyahay cidda wada cidda masruuca ku soo qaadatay dadkooda wajigooda iyo dhabarkooda inay lacag ka sameeyaan oo qandaraas ka soo qaatay xasan sheekh maxamuud ciddaasay nabaddu eersan doontaa